السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. isku soo noqosho wacan topiga maanta ka hadlayno waxaa weeye rug pull iyo honeypot. Rug maxay yihiin iyo sidee la iskaga ilaalin karaa? Haddaan u guda galno topigeena maanta waxaa jiro labo tuugo. midka koowaad ama tuugada koowaad waxaa la dhahaa tokenkaaga ama lacagtaada tokenka way kaa xadaan. waa tuugo coinka ama tokenkaaga kaa xada. seebay u xadayaan? waaladkaagay soo dhexgelayaan, maybe password jilicsan buu leeyahay, ama waxaad ku dhufatay linki khaldan oo tuugo scammer ama haakar kuu soo direen. marka tokenkaaga inaan lagaaga xadin camal seebaa iskaga ilaalin kartaa? haddaan kuu tilmaamo, password adag baa samaysan kartaa. linkiyaasha iyo waxa laguu soo diray inaad ku dhufanin oo saada computerkaaga ama telefoonkaaga loo soo dhexgelinin. inaad maxaa la dad ay kugu dhahaan coin baa tusaale ahaan gadatay, coinkan sidaa uga faa'iidid waxaa samaysaa gaaskaagii ama lacag aa kula soo baxdid soo dirso. kuwaasna waa tuugo kale, lacagta dambe aa soo diraysid bay danaynayaan, lacagta horena way kaa xadeen. airdropyaal xunxun inaa lagu soo diro ama waqtigaa ku lumisid, ama linkiyaasha airdrop fake iska ah baa iska jira, kuwaasna iska ilaali. siyaabo badan baa marka kuwa tokenka haysatid ay kaaga xadi karaan. marka taas waa another topic. hadda xooga waxaan saaraynaa tuugaga tokenyaasha samaysa oo lagu magacaabo token creatorska baa xooga saaraynaa. midda labaad baa xooga saaraynaa. kuwaas waxaa xooga saari doonaa tokenka kuwa sameeya, haddana isla markiiba tokenkay sameeyeen bay rug pull ku sameynayaan ama honeypot. waa tuugo ayakii waa coinka sameeyey, coinkii laftirkiisa lacagtii aa ku gadatay oo investorka ama dadka maalgashadayaasha lacagtii keensadeen bay xadayaan. marka kan labaad baa xooga saaraynaa, waan u gadagalaynaa. ugu magacaabay rug pulls. rug pull macnaheedu tahay roog iska hoos bixis. bal qiyaas inaa ku taagan tahay roog oo si lama filaana lagaaga hoos bixishay, cagahaaga hoostooda laga jiiday, waa dhacaysaa soo maaha, ila roogii baa lagaa baxshay. taasi waa rug pull. waxaa lumisay dheelitirnaantii aa ku taagneyd roogaas, marka waa dhacaysaa. marka rug pullka waa saas, qarashkaagii iyo lacagtaada lagaa dhacay, dheelitirnaantaada tiraysaa. qofkii qalbada ka jibinaysa lacagtiisa waa laga dhacay, marka roogii baa cagahaaga laga bixiyay. waxaan kaloo rabnaa inaan qeexno liquidity pool. markastoo isticmaali doono liquidity pool, marka waa inaan hadda hore usii qeexnaa. It's like a saving account for cryptocurrency. saving account oo cryptocurrency camal waaye. saving account maxaa waaye? lacag meel gashatid, bangiga lacagta dhiganaysa uu ku haynaya. saving account camal. it's a pool tokenyaasha lagu xiro dadka say uga trade gareeyaan. waa box lacag iyo coin lagu riday oo liquidity pool la dhaho, say dadka investorka ah oo coinkan gadan doona uga dhex trade gareeya, marna gataan marna sii gadi doonaan. marka waa inaan hore usii ogaana, ilaan waa isticmaali doonaa ereygaas. rug pull in crypto waa scam ee dadka coinka abuuray sameeyeen. liquidity pool bay coinkaas u sameeyeen siday dadka u tusaan coinkan waa la aamini karaa. trustworthy yacni wax la aamini karo oo genuine camal u eg bay kuu sameynayaan. marka waxaasaa rug pull la dhahaa. rug pullka waxaa laga dhexlaa tuuganimada qarsoon, investor deception, qiyaamo maalgashi bay kugu sameynayaan, way ku khiyaamayaan dadka. waa lagu confess garaya ama waa laga dhaadhicinayaa coinkan gado, waa lagu aaminsiinayaa inuu lacag ka heli doontid, fursad ganacsi oo fiican inuu yahayna waa laga dhaadhicinaya. marka maxay kugu sameynayaan?
qiyaamo maalgashi. maxay kaloo sameeyaan deceptive move, tilaabo khiyaamaha bay kugu sameynayaan. tilaabadaas maxaa waaye once money investors, marka money investors dad badan markay join gareeyaan ama gataan coinkaas volumekiisa kor buu aadaya. marka dadka ahna waxay sameynayaan withdrawal bay ku sameynayaan ama la baxayaan lacagtii liquidity poolka kala baxayaan lacagtii boxkii coinkii lacagtii laga buuxiyey oo saving accountiga ahaa bay lacagta kala baxayaan. marka rag poolka waxaa laga dhex xakameeya tilaabooyin qiyaamaha bay kugu sameynayaan. waxay kaloo sameeyaan vanishing act, marka dadka ah ama tuugiyaasha way cararaan, waxayna la cararaan dadka lacagtiisa, dadkii maalgashadayaasha lacagtiisa coinkii bay ka tegayaan oo macno ku fadhin ama qiimo la-aana ama nothing coin ah ama worthless bay uga tegayaan meesha. coinka mana gedi kartid, iskamana soo gedi kartid, mana sii gedi kartid, lacagtaadina saasay ku lintay. so coin ebera meesha kuugu reebayaan, ayakana way cararayaan. waxaa laga dhaxlaa waxaa ka mid a investors, dadka maalgashadayaasha mar dambe bay ogaadaan inay dhib ku dhacay ama lacagtooda la xaday ama ay lumiyeen, mar dambe ku baraarugayaan. xaggaas waxaan uga baxaynaa rug pull wuxuu yahay. hadda waxaan u gudagalaynaa what is the honeypot. honeypot haddaan qiyaasno waxay la mid tahay weel malab ah oo lacagtu kaaga dhegtay aada kasoo saari karin. tusaale ahaan weel malabaa haysataa laytam, haddaan ku macneyno maxaa waaye honeypot laytam macnihiisa haddaan ku macneyno waxay la mid tahay weel malab ah oo lacagtu kasoo fuqi weyday ama kaaga dhegtay. deceptive scheme sameeyaan maxaa waaye honeypot in cryptocurrency is a trick created by the scammers. honeypotka waxaa abuuray iskaamarayaasha kuwa ah baa abuuray, tuugiyaasha abuuray. attractive offer, soo jiidasho waxay ku sameynayaan maalgashi oo dadka run u moodayaan say opportunity investment ay ugu sameeyaan inay dadku maalgashtaan way kusoo jiidanayaan. waxay ku dhahay meeshaan lacag baa laga helaa, dhaqso invest garee, markaasaa lacag baa gelinaysa. waxaa laga dhexla waxaa ka mid ah markay lacag badan helaan dadka scammerka way cararaan, waxayna ka tagaan dadka investorka ama maalgashadayaasha waxay uga tagaan coin aan macno ku fadhin ama ebera ama ay iska gedi karinin, marka lacagtoodana ayakaa la carara. waxaa ku xiga types of rug pulls. intuu qayb oo u qaybsamo rug pullska waa badan yahay, laakiin anigu saddexa hadda kasoo qaadan. rug pullku wuxuu u dhici karaa liquidity theft wuu noqon karaa. liquidity theft waa scammerkii token meeshii buulka ahayd oo lacagta oo dhan buu kala baxayaa. markii lacagta laga bixiyana coinka mana iska gedi kartid mana soo gadan kartid, marka khasaarada meeshasi kaa soo gaaraysaa oo lacagtaada inay lala cararay baa ogaanaysaa. limit sell order waxa la dhahay sameynayaan, gacmahay kaa xirxirayaan scammerka, coinkaagina iskama gedi karti. limit bay orderkaaga ama coinkaaga ku xirayaan, ilan lacagtaa la baxaysa haddaa gadida waa gadan kartaa laakiin ma sii gedi karti camal. waxay kaloo sameeyaan dumping, wax ay kugu sameyn karaan waa kugu soo daadin karaan coinka. scammerka coinka kugu soo daadinayaan, markay kugu soo daadiyaanna maxaa la dhahaa lacagta ay kaala baxaya, adigana hoos buu noqonayaa coinku, khasaarahana ku sugnaanaysa. saddexdaas waxyaalood waxaa weeye rug pullka qeybaha u kala qaybsamo. marka tusaale rug pullkii cryptocurrency-gii oo rug pull lagu sameeyey oo historyga galay caalamka oo dhan uu ka warqabo waxaa ka mid ah oo la ogaaday in la xaday. waxaa ka mid a tusaale ahaan haddaan siiyo squid game tokenkii la dhihi jiray. tokenkan waxaa loogu magac daray filim caana oo netflix ka socda oo musalsal ah oo dadku isdilayaan ultimadana ama ugu dambeysa hal qof uu soo harayo. marka haybkaas iyo magacaas ba ayaku tuugiyaasha ka faa'iideysteen. markay ka faa'iideysteen squid game token bay soo saareen, waxaana la create gareeyay ama lasoo saaray tokenka 2021 ayakoo maxaa la dhahaa ka faa'iideysanaya haybka netflixka maxaa la squid game bay u bixiyeen.
marka waxay sameeyeen tokenkii maxaa la dhahaa mala gadi karo mana la iska gadi karo laakiin waa lasoo gadan karaa lacagtii dadkiina way la fakadeen marka dadka waxaa ku dhaliyey inay ka faa'iideystaan midka koowaad waxaa waye Netflix movigaas la bunbuuninayo oo caan ahaa waxay isdhaheen hypekan socda armaad investment gelisaan oo lacag ka heshaan ama faa'iido ka heshaan marka dadka saas baa hypekaasaa qaaday markaasay galeen waana la dhacay marka tusaalaha caanka ah oo rug bull tusaalahaasaan kasoo qaadanay oo nooga filan how to avoid a rug pull sidee rug pull iskaga ilaalin karnaa waxaan iskaga ilaalin karaa anagoo research badan sameynay projectiga teamka la soconay technologygooda la soconay coinkaas gooliskooda teamka markuu coin soo saarayo waa inaan la socono communityga coinkaas soo saaray inaan la socono projectyaasha maxaa la teamkaas oo aan la aqoonin project aan la aqoonin dadka wata inaa iska ilaalisid oo transparent aan lahayn security audit waa inuu maraa coinkaas community engagement waa inuu leeyahay community engagement active ah waa inuu leeyahay social media active waa inuu leeyahay waa waxa ku tusinaya coinkan yacni duntiisu way fiican tahay ama waa maal gashan kartaa warning signska iska ilaalinaysa maxaa kamid ah in lagu ballan qaado unrealistic returns like waxa aqlagal ahayn $100 keenso 5,000 ku siinaya hadda aqlagal maaha $100 5,000 iskuma dhigmaan marka caqligu ha shaqeeyo heavy marketing inay sameeyaan in la buunbuuniyo coinkaas oo xayeysiin loo sameeyo caqligaltaasna ma ahan marka waa inaa iska ilaalina kaasoo kale pressure maxaa la dhahaa investment quickly in lagu pressure gareeyo inaad maalgashi samaysid coinkan ku samaysidna waa inaad iska ilaalisaa waa inaad aamintaa ilaahay instansigu ku siiyey ama caqligu ku siiyey oo fikirta foomada waa inaad iska ilaalisaa fear of missing out alarmo coinka iga tagaa lacaga maxaa u investigation waaye rich baa noqon lahaa waxaas investmentiga yani fomo inaad iska ilaalisid waaye wixii lagu qadara ma seegaysa laakiinse waa inaad feejignaataa pointigaan iiga tagayo main point waxaa waaye intaadan lacag maal gashanin waa inaad researchkiisa sameysid meelo badan ka fiiriso researchki loogu talagalay coinkaas ama projectgaas waa inaad take your time sameysid white paperka akhrisid websiteyada misteegyaasha soo saartid waxaasoo dhan waa inaad sameysid oo ku mahadsantihiin casharkeena meeshaasa ku joojinaynaa